إلهي تبارك وتعالى شيء كستوحوا لأساس حق أساس كيسوا تضحية ويان تعبك هي مجاهدة هي مشقة هي صبرك هي دلقاتك باطل كنا وحقوق كفدا تعيشك هي الراحة هي أشياء مادياتك marka asbaabtuna xaqiisii uu u baahan yahay inuu fido baadilkuna isaguna asbaabtiisa uu ku fidaya lamana bedeli karayo labada nidaam baabuurka taayirkiisa shaaga baabuurka hadii aan idhaahno ka warramo waxa ku rakimaynaa baaskiil kii baaskiilkana haddaan idhaahno ka warramo waxa ku rakimaynaa baabuurka soconaysa ma soconaysa marka sunnada ilaahay jalla wa ala inuu حق فضو وضدك أي دين تفهمان وحي إلهي وجديي ضدك الدين تأهلوا أي دين تقول نسبة شيئا عايا إن النقضان ضد صبر بدن والدلقات بدن والنقصان تأديد عن أي نسامين لذلك مؤلف رحمة الله عليه الشيخ يوسف وحيري تحمل الجوع في الدعوة إلى الله nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu markay dadka diinta ugu yeedhayeen gaajadii ku timiday iyo siday ugu dulqaateen imaam at-tabrani ayaa soo saaray xadiis sanadkiisu uu xasan yahay faatima radiyallahu anha waxay tiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin noo yimiday faatima waa ina maxamed weeyaan sallallahu alayhi wasallam faqala markaabu nabigu yiri أين ابنايا لبدي ويلمه يعني حسن يا حسين ابو النبي وجدا ودينتي فاطمه يا دشي فاطمه وين محمد ويان حسن يا حسين ابوهنا وعلي ويان علي يا النبي كان لبا ولا يا كلا دلي نعم قالت وحيت فاطمه رضي الله عنها ابو واغا يا نوبري انكو غورغيغا انن كو هين شيء قفك ددميه ونن ددمين كرين يعني cunto la dhadhamiyo guriga iyadoo aanan oolin wax la dhadhamiyaba ayuu waagu noo bariyay marka Ali ayaa yiri aniga ayaa ka qaaday Xasan iyo Xuseen waxaan ka cabsanayaa inay kugu dul ooyaan agtaadana waxa tii sameeyay dadna Ali ba marka xagga beeraha yahuudu ay leedahay ula kacabay naam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa فاطمه soo diyaartay subaxdii oo wuxuu nabigu yiri marka awal labadii wiil Xasan iyo Xuseen nabigu aad buu jeclaa waa labadii uu nabigu yiri sayyida shababa wa an'ama ahli aljanna shababka ummadayda jannada galaya waa labada ugu darajo sareysa ugu barwaaqo badan buu rasuulku yiri maalin buu nabigu isagoo mambarka fuushan khudbadaynaya ay Xasan iyo Xuseen masjidka ay soo galeen khudbadii nabigu intuu joojiyay buu dhaadhacay labadoodii buu halkii ugu tagay uu soo qaatay mambarkii buu ku soo noqday markaa buu nabigu yiri labada markaan arkama joogi karo waan jecelahay kii jeclaadan ilaahu jeclow labada kii nacana ilaahu nacbu rasuulku yiri darajo deelayhim bal ka warama darajadoodaas yaa dhashayna faaduma ayaa dhashay Ali ayuha maalinku nabigu ansaartii muhaajiriinta uu walaaleynayay nabigu Ali keligii buu daayay markaas Ali ibn Abi Talib yiri ya rasuulallah aniga ayaa dila walaalaysay markaas ya Ali adigu aniga ayaa adduunkan iyo aakhira walaal la tahay buu keenay aniga leh iyad walaal ila tahay adduunka iyo aakhira marka Xasan iyo Xuseen waa usradan waxay ka soo jeedaan yaa ka sharaf badan